maamulka Puntland ayaa si adag uga hor yimid qorshaha madaxweynaha SSC Khaatume Cabdiqaadir Firdhiye uu ku doonayo in gobolka Sanaag lagu daro maamulkiisa. Maxamuud Caydiid Dirar, wasiirka warfaafinta maamulka Puntland, ayaa sheegay qorshahan inuu yahay mid madaxweyne Firdhiye looga soo dhiibay Muqdisho, balse waxa uu tilmaamay inuusan ahaan doonin mid suuragal ah. Wasiir Caydiid waxa uu sheegay in madaxweyne Firdhiye looga baahan yahay inuu raaligelin ka bixiyo hadalladiisa, isla markaana uu ka laabto damaciisa siyaasadeed. Puntland waxay ka kooban tahay 5 gobol iyo degmada Buuhoodle. Haddii cid ka go'aysana waa inay ku timaadaa wada-tashi iyo is-afgarad. Hadduu SSC dhisayana macnaheedu ma ahan inuu burburinayo Puntland. Intii isaga raacsan ha u dhiso, laakiinse hadal uu telefishinka ka yiraahdo oo ah Sanaag ayaan ka soo goynaynaa Puntland si SSC dowlad gaar ah u noqoto, arrintaasi ma suuragelayso, ayuu yiri Mr. Caydiid. Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay madaxweyne Firdhiye inuu qayb ka yahay qorshayaal lagu burburinayo Jubbaland iyo Puntland, isagoona dana gaar ah ka raadinaya dowladda federaalka. Geesta kale, wasiirka warfaafinta SSC Khaatume Najiib Barqadle ayaa ka jawaabay hadalkaasi wasiirka warfaafinta Puntland, isagoona sheegay inaan loo baahnayn warxumo tashiil, sidoo kalena labada maamul ee SSC Khaatume iyo Puntland ay ka wada hadlayaan arrimahooda masiiriga ahi.